wixii hore waxay ahayd un madadaalin mar kale waan isku soo noqonay waad salaamantihiin reer Caynaba dhammaantiin dhalinyaradana aad ayaan ugu mahad celinaynaa kole barnaamijku safar dheer buu soo galay waxaan ugu talagalnay isdhexgalka bulshada magaciisana sida aad arkaysaan waa Somali show qof kasta oo Soomaaliyana uu u furan yahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahad celinaynaa soo ajiibteen martiqaadkayga waxaa kaloo jirta barnaamijku wuxuu bixiyaa abaalmarino lagu guuleysto lacago kala duwan muhiimadeeduna ma aha inaanu lacaga uun bixino laakiin muhiimadeedu waxay tahay wax intaa ka weyn oo ah inay bulshada iyo dhalinyarada ku dhaqan deegaanadu ay isdhex galaan oo dee aynu noqono dad isdhex gala oo aanu ka qayb qaadano dhalinyarada sidaan isu dhexgelin lahayn waad mahadsantihiin marar badan baan idin mahad celinaynaa kole barnaamijku wuxuu mari doonaa gobolada dalka oo dhan annaguna si khaasa waxaanu qiimeyn ku samayn doonaa gobolkii ugu anshaxa badnaa ugu soo dhaweynta badnaa waan idinka mahad celinaynaa daqiiqadihii aanu ku sugnayn magaaladiina sida sharafta iyo karaamada leh aada noo soo dhaweyseen waanan idinka qabnaa thank you so much barnaamijku waxaa sharaxaadiisa guudina siin doona maxamed Soomaali oo garabkayga taagan isaga ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijkuna intaa ka dambaysa uu inoo furan yahay aad ayaad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh reer Caynaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka markii koowaad iyo marka labaadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kolay hadalka intiisii hore waxaa dhamaysay Sabriin imika waxaan u bilaabay barnaamijka inaynu isla fahanno qaabkii aynu wada socon lahayn barnaamijku siday ka dhawaajisay Sabriin waa barnaamij aan ugu talagalnay isdhexgalka dhalinyarada meel kasta oo joogto iyo gobol kasta oo joogto gobolada inta noo hadhan insha Allah waan mari doonaa markii labaadna nasiib waxa uu yeeshay magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar barnaamijka haddaan sharaxaad ka bixiyo nambarada horta uu ka kooban yahay waa 1 ilaa 36 nambar 1 ilaa 36 nambar qofka soo kaca ama nasiib u helay inuu soo kaca wuxuu ka qabsan doonaa 7 nambar 7 nambar kastaana lacag ayuu ku fadhiyaa nambar kastaana wuxuu leeyahay qiimo gooniya ku jira طبعا halkan uu ku jira markuu qofku halka 7 nambar ka doorto fotoka bal riixaya istaada ku qoran tahay kadibna mastarada bay loo wareejin doontaa inta kadib 7 nambar waxay soo geli doonaan godadka halka ka banaan nambar kastaana saan hore u sheegay lacag uu fadhiyaa 6 nambar ee hore marka laga yimaado lambarka ay B ku qoran tahay waa lambarka lacagta ugu badan lagu helayo lambarka ugu horeeya waa ka koowaad ilaa ka 7 haddii aad hesho waxaad qaadan doontaa lacag dhan $50 oo isla goobta lagu siin doono haddii uu nasiib ka wanaagsan yahay marka labaad waxaa ugu yar lacagtana waa $5 oo ay ugu yar tahay 2 nambar lambar 1 iyo lambar 2 labadaas hadday kugu wada dhacaan $5 waad qaadan doontaa lambarka iyo lambarka chance hadday kugu wada dhacaanna $5 waad qaadan doontaa waxaan lacag ugu qaadanin oo keliya haddii aad hesho hal lambar laakiin inta kale 2 3 lacagtuna sidaas ay sii kordhaysaa inta ay $50 gaarayso waxaa ka horreeya markaa inaad halkaas soo gaarto qof kasta oo lambar warqad gacanta ku haya ciidan ay sameyn jirta inta warqadood aad gacanta ku haysaan mid kasta halkan koobigeedii ayaa ku jira saacada laga bilaabo qofna garan maayo idinkuna ay garan maysaan qofka marka warqadta soo qabto lambarku uu noqdo Allahu a'lam yeen garanaya lambarku uu noqdo ba soo istaagaya markuu soo istaago kadib marxaladuhu mari doona baan idin sheegaya sidoo soo socdo wuxuu tagi doona wuxuu qaadan doonaa warqadaas sanduuqaas isagana gacanta sii galin doona 4 shardi midkood baa ku qoran warqadaha halka ku jira number 1 waa inuu sheeko gaaban oo xikmad xiiso qosol ama ku dhacdo ama yaana ku dhicin waa qodobka koobaad ka labaad waxa weeye hees inuu ku luuqeeyo tii hore tii dambe tii dhexe mid isagu leeyahay qodobka saddexaad waa su'aal baa ku qoran su'aashana laba siyaabood bay noqonaysaa haddii qof uu nagu dhiibi karaya qof markuu halka soo istaago qof masraxa uu soo weydiin karaya aniguna waan weydiinaya waxa yimi qodobkii afraad waxaana ku qoran buraanbur waxaana ku qoran buraanbur qaabka inuu wada socon doona sidaas noqon doona hadduu alla ka dhigo inanta garabkayga taagan Sabriin waxay soo kicin doontaa
qaybta inamada waxaan weliba codsanayaa inta barnaamijku inoo socdo si xasilooniya oo qurux badan oo degan inaynu kala faa'iidaysano dee wixii kale way naga reeban yihiin oo waad garanaysaan qof gacan taagay iyo qof hawl iyo qof baalki warqadda marka la yeedhiyo qofkii hayoonba gacanta sare u taagaya dadkaanu tusayaa nambarka inuu hayo kadibna masraxu soo istaagaya intaasay naga wada xigtaan intaasaanay naga dhaxaysa softwarekaasina wayna xukumayaa markaa hablaha oo inagu yar darteed maadaama inamadu 3 jeer ku laba jibaarmaya baan malaynayaa 2 jeer marka inamada laga qaataa mar habla laga qaadanaya saas cadaalad ma tahay maadaama ay 3 jeer ku laba jibaarmayaan 2 jeer marka in 2 jeer inamada la kiciyo ayaa marka saddexaad hablaha loo iman doonaa barnaamijku sidaas inoo sii socon doonaa waxay noo bilaabaysaa saabiriin oo dhinaca inamada ku bilaabaysa ku soo dhaweeyaan leeyahay wada dheregteen ujeedada barnaamijka ee aan soo qabto warqadda ugu horeysa oo aan kala furo aniyo qofka nasiibka u yeeshay wixii 100 ka sareeya ay wiilasha leeyihiin wixii 100 ka hooseeyna gabdhaha ayaa leh warqadaas waxay ahayd mid gabdhaha oo 100 way ka hooseysay 119 qofka warqada haysta ha soo kaco qofka haya 119 gacanta taago soo raaliya 119 waynin ka wareegtay soo dhow lambarka tusinadaysi lambar 26 waad wada aragtaan baan u malaynayaa kusoo dhowo walaa barnaamijka waan dhawo walaa mahadsantihiin waan salaamaya dadka halkan ugu yimaada tarafto dhammaantiin ma aad baan idin salaamayaa waad mahadsan tahay aadayaan anaguna kuu soo dhaweynaynaa waraaqaha nasiibka ayaad gacanta soo gelin doontaa wuxuu nasiibkaagu noqdana waxaan rajeynaya inaad ku qanacdo kala fur oo bulshada tuus waxa kugu qoran gabay haddii aanad haynin waa lagu bedeli karaa mar kale jaanis oo leed waayo gabayga iyo gabdhahu iskuma fiicnaan u malayn mar kale gacanta gasho buraamur baa u soo baxay waan kugu soo dhaweynayaa buraanbur ayaa ii soo baxay laakiin anigu waan ka xumay buraanbur ma garanayo heesagaan idinku bedelayaa sida lama lawshaa dabaylu ay lulayaan kaale lambaraad qabsan doontaa waayahay lambar 5 lambar 10 lambar 11 15 lambar 17 si haddii kuu buuxsamaanay lambara kuugu dhacaan bal halkaa eego inay kuugu dhacaan laba number baa ugu dhacay hal number mooyee wixii hal number ka sareeya
maktabadooduna way kala sarsareysaa marka waxay ku guuleysatay lacag dhan qiimaheedu $5. hadda waxaa lagu guda jira guddoonsiintii lacagta wala waanaan soo qaadin lacag caddaana laakiin waxaan ku haynaa khadka fudud ee saada gabadha naafkeeda idinka sheegi doontaa inay lacagtii annaga naga timi oo ay naga hayso halkan keliya looma iman inaan lacag lagu guulaysto waxaan rajaynayaa caynaba inay ka dhaadhacsanaato isdhexgalka bulshadu oo quyaraan isdhegaysano annagu waqti baan idin hurnay mar horena waa idiin sheegay waqtigiina inay noo hurtaan gabadhan aan weydiino horta bal inay lacagtii naga hayso ma naga haysaa lacagtii horta magacaaga bal noo sheeg raxmo cabdi jaamac walaal raxmay sidee baad u aragtaa barnaamijka halkan ka qabsoomay mise ma filaysa inta gurigaagii lagugu yimaadeen haddana lacag lagugu siinayo may wallaahi wax cajiiba waa lacag way wana ku guulaystay waana mahadsantihiin maxaad ugu baaqaysaa dhalinyaro reer caynaba marka hore waxaa loo yeedhay xagga inamada 2 lambar way ka baqeen inaanay ka baqanin kusoo dhirna lacagta qaataanba aabay mahadsan tahay waad noo lacag sunagma haysid u sheeg si fiican u maqashid waxaa lacagtii waan haystaa imika dhalinyaradana aad baan u saameeyay mahadsantihiin adiga aad iyo aad u mudan waad noo fadhiisan kartaa taankii aan kula nahay mar kale shacabka loo garaaco oo guulaystii koobaad reer caynaba waxaan leeyahay sidayn intaas idin sheegtay cidina idin cuni mayso dhib kale ma jiro aayar baad nasiibkaa qabsanaysaa hadduu nasiibkaagu wanaagsan yahayna raxma inoo tusaalaa waxaan ku celinayaa barnaamijkii ka horreeyey dee number marka la yeedhiyo qofka lama waayeen waxaa sababay dhallinyarada oo inagu yar darteed marka numberka ilaa de qofkii laga helayo waa lagu celcelinaya haddii ilaahay ka dhigo hana dhibsanina waqtiga way wada qaadan doonaa hadduu allah awoodda la ogolaado waxaan rajeynayaa dadka dambana inay sii guulaysan doonaan hadduu allah awoodda la ogolaado numberkii ugu horreeyey baan aniguna furayaa laakiin inuu guulaysto ma doonayo haddii kii hore guulaystay saddex wan yaa haya 3 wan qof walaba warqadaada eeg qof ogi ma jiro kacda ka daaya qofkii 3 wan haysta gacanta taago ma jiro warqayalkan biinoo yeelan baan malaynayaa labawan 8 17 lambarka xagga u jeedin isweegi aad baad mahadsantay magacaaga maxamuud ibraahim cismaan maxamuudow kolay inankaa horreysana waad arkaysay bal adoo dareenkaaga cabiraya barnaamijkan sidaad u aragto waxaan u arkaa si wacan baan u arkaa haddii lacala aada guulaysato sideebaad maxaad ku fankaraynaysaa lacagtan waxaan ku fargaraya wix ilaahay ka dhigo haddii ilaahay ka dhigo waayahay maxamuud samoy maxamuudow gacan warqaddaa sanduuqasaad gacanta gelin doontaa inantii hore mar baa loo bedelay laakiin qofka dambe soo kaca wuxuu soo baxa hadduu nin yahay oo buraanburu soo baxo unbaa la bedelaya haddii kale qofka wuxuu soo baxa oo inuu ku qancaa sameeyana warqadaasaad gacanta gelinaysaa ta kugu horeysa waxa ku qoranna waad nala wadaagi doontaa su-aal baa lagu weydiinayaa masraxa waan u gudbi doonaa maxamuudo waxaan ku weydiinayaa kolley welina dhalinyaro waa tahay weli jacayl ma kugu dhacan jacayl hayo igu dhaco markii islaanteedaan guursaday ugu dhacay aad ood mahadsan tahay islaantaadu inay ku daawan doontona waanu filaya haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku gudbin doonaa dhinaca iyo nasiibka maxamuud nambarada halkaa ku qoran 1 ilaa 6 iyo 30 nambar 7 nambar oo ka mid a dooran doontaa 1 ilaa 6 iyo 30 ka u horeeya waxaa weeye 8 3 4
shan lix toddoba hadhayin sagaal ku dar ureji lixda lambar halkaasay ku qoran yihiin lambarka ugu dambeeya waa nambarka sagaalaad haddii uu nambarka sagaali galo halka xarafka b ku qoran tahayna lacagtaad heli doontaa way ka badnaanaysaa lacagtii hore nasiibkaagaanu kula eegaynaa maxamed horay lambarka ugu dambeeya waa sagaal haddii uu ku dhaco afartaa ku dhacay sii sagootiya maxamuud sii sagootiya aad baad umahadsan tahay muhiim maaha qofku inuu guulaysto laakiin waxaa muhiima qofku inuu fahmo ujeedada barnaamijka una nagala soo qayb galo insha allah marar kalead guulaysan doontaan 182 wiilka sacabka loo tumo soo dhawo wayaan ku leenahay waa kaa lambarkaygu waa 182 aduguna bulshada tusee labada lambar si yeeshaan aad ayaad umahadsantahay adigoo magacaaga ku bilaabaya oon kugu soo dhaweynaa barnaamijka dhawahay walaaleed magacaygu waa shaafici maxamed cawli aad ayaad umahadsantahay wala waraaqaha kaa dambeeya ayaad u laaban doontaa ood gacanta soo gelin doontaa wixii kuu soo baxeen oo nasiibkaaga buraanbur baa kuu soo baxay quraana may waraaqdaas nasiibkaaga waraaqaa laftirkooda quraan uu ku jira hadduu kuu soo baxo nasiibka mar labaad ayuu buraanbur u soo baxay marka saddexaad hadduu soo baxo uu buraanburaya maxaa ku soo baxay soo dhowo ayaan ku leenahay sidee baad u aragtaa barnaamijkan wadno ee Somali Show walaal barnaamijkan haddii aan ka hadlo wallaahi aad buu wanaagsan yahay waxaan leeyahay halkaa ka wada gobolada Somaliland aad u gaarsiiya waa talo fiican lambarada ayaad u gudbi doontaa 1 ilaa 6 iyo 30 lambar koowaad 11 igu dhufo sagaal 03 kow 5 36 35 nasiib fiican ayaan ku rajeynayaa anagu wixii aan ballan qaadnay oo aad u mahadsanyahay kole umar iyo mar saabiriin markeedii waa la guulaystay markeydii labaad lama guulaysan markayga labaad waxaan rajeynayaa kii hore inaan bareejeeyo one three two soo dhow halka sii taagan 132 magaca mubaarak barraada mubaarak barrow haddaan su-aalaha kugu yaro bilaabo barnaamijkan horta sidaad u aragtaa inaan gobolka caynaba yimaado barnaamijkan gobolka caynaba aad iyo aad bay ugu baahnaayen dhalinyaradu aad baad mahadsan tahay nasiib fiican baan ku leeyahay nasiibkaaga ku gudbin doonaa sanduuqaasaad gacanta gelin doontaa hadduu allah awooda la ogolaado waa ragga buraanburka maxaa ku saliday bal ku cesho waa wadaad laakiin heesta u soo baxday laakiin u fulinaya shardiga halkan soo istaag
بليس أموسا qorraxdo aroortii qaybisay falaadha maqaasa roobaad daruumida ku qarisa qofku markuu halkaas soo istaago waxa uu sabarto waxaanu ahan qofku ma jiro waxaanu odhan karayna ma jiro laakiin idinkaa ka qashilsiin inanka barto ka yarajeysta inanka idinkaa ka qashilsiinaya mubarak nasiib wacan baan ku leeyahay aad baad mahadsan tahay waxaad bixisay mid ka mida shuruudihii aad ugu gudbisay nasiibka nambarada halkaa ku qoranna 7 ka mid ayaa dooran doonta Afaleti, Começo, nambarka ugu dambeeya waa 25 maariga uu tubaarku ku wareegaya hadda sawirtu ugu dhicmaya xaqiiqo soo لعلها هدية تقول استمروا حد يلسان سيتي عمل حلوق على الطرق سيتي عمل الماموري تعتبر الجينية تصدق كم إذا بردودت كنت قاعد كان السيور ريضا تقول عايد laakiin nambarkii ugu dambeeyay 25 oo qabsaday hadduu raaco sababuu raacin sii sagootiya muwaarig sii sagootiya naga lacagta waa naga diyaar lambar 40 qofkii wataa soo kaco lambar 40 lambaradiina hoos eega fadlan lambar 40 habliyayna ma jiraan malaynaya lambarkaas lambar 48 48 ma jiro isna lambarada intii aan soo daabacnay iyo dadka intii soo qayb gashay ayaa kala badatay saa darteed bay lambarada iyo isu waafaq leeyihiin qaarkood iyo dadka meesha jooga 139 sheekh al soo dhaweeyo inuu iskaba tegay baan moodeen soo dhow aad baan kuu soo dhaweynaya walaalo bulshada tus lambar 139 waad mahadsan tahay kusoo dhawo barnaamijka halka ayaad tegi doontaa si aad u buuxiso shuruudaha barnaamijka waraaq ayaad soo qaadan doontaa waxa kuu soo baxana dadka goobta ku sugan ayaad la wadaagi doontaa gabay waa u soo baxay sheekha waxaan rajaynayaa inuu gabayga adduunka noo mari doono kusoo dhawo hoyaalay ilaan awaan dinawaakii gobolkan saraar ceelkiisa dheer ee caynaba ku tilmaamay adduunka qofkiiba idinkaa ka xishoodsiinaya wuxuu odhan lahaaba idinkiibaa ku qoslaya ku sacbinaya adayuu mahadsan yahay lambarada ayuu u gudbi doonaa lambarada ayaad gudbi doontaa mikrofoonka qabso 1 ilaa 6 3
إن شاء الله نسيب في عقب كل شيء. إنا نسبة سماية بدل بيلات هاي. إني كعديهم سب لعبوا كل استوى كذا فرا. أنا أعرفكم مو اللي بيجي يجلس. هو ما يسمع. أنا سأسأل من كين نبوغا مكان نسبة. kaaga magaciina ka soo qaybgalkan aad u mahadsan yihiin saabiriin iyo inankaasiba barnaamijkan kolley kusii socon doonaa guulaystayaashii way yaraadeen bar malaynayaan bal dadkii hoodada lahaananu isku dayo $193 193 walaal kusoo dhawo barnaamijka adoo magacaaga nagu bilaabaya shaafici salaamaano intaynan war kale u gudbin halkaas aadaysaa waraaqaha mid ka mid aad soo qaadan doontaa positionkaagana waad ku soo noqon doontaa sheeka u soo baxday weliba loo wadaag dadka tus waxaan samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo sheekadu waxay noqon doontaa qof aynu soo istaagay gabiya dee bulshadii wax macnala in loo sheegaa muhiima barnaamijku xaraabo ma aha oo inaynu wax kala faa'iidaysano markaa waxaanu ka filaynaa shaaficina sheeko aada u gaaban ama ha ku dhacdo ama ayaana ku dhicin dee hawsheedana wadata maalin baa aniga iyo ninka Ismaaciil Xasan ayaa waxaan raacnay meelkaasoo beertooda dhinaceeda kadibna waxaa dhacday maalmaha waxay waqtigii hore xayawaanada magaalada soo weyneen halka wax kasoo geli jiray maalaha ee kasoo geli jiray kadibna waxaan soo raacnay beerta kadibna maalinta waxaa shaafici laba mid buu kala dooranayaa kolleysaan horeba uga dhawaajiyo mayna soo istaagin in dadka wax lagu raado la iska qabsada nasiibka nagu matalagelin in la iska qabsado aniga lacag laga helo waxaan ugu talagalay bulshada dadka ku dhex jira inay halkan iman karayaan waxna soo jeedin karayaan waxna isu sheegi karayaan marka intaas qof maanta wuxuu sheegi weydo korma ayaa bal dadka wuxuu sheegi doontaa waxaad samayn doontaa shaaficu laba mid kala dooranaysaa inaad jaaniska qof labaad siiso halkaagi ku noqoto iyo inaad sheeko bedel ma jiro uu tanaasulay aad u mahadsan yahay martida xaggayga dambe fadhiida baan qofka ku sharfaya uu baneeyay wiilkaasi iyagoo ku dhowda 1 2 3 4 5 waa 5 qof sida lagu kala xulanayaa baa taala gar ilaahay bay taqaanaa kaasaan ka bilaabaya boqol baan tirinayaa kaasaan ka bilaabaya ku dhamaaday qaadanaya
boqol haa waa wax yar ii sabra bal maqashiya waa konton iyo boqol waa isku mid konton baa ka dhigayaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 gar ilaahay way taqaanaa marka hore magacaaga jaamac nasiibka marka hore soo qabso kartoonka faraha geli hees baa soo baxday soo dhawow jaamac soo dhawow jaamac kolaba qof halka horaa bulshadana magac ku leh oo nin wariyaa aad baan ugu soo dhaweynaya kolay dow nala fahmaya barnaamijkeen dawadii naftayda ay dad bataanka doortay soo inaan ku daawado daldheeruga maseeki dumar haygu noqoni aad buu mahadsan yahay jaamac waxaan samayn doonaa nasiibka ayuu gudbi doonaa nabaradiisana uu qabsan doonaa siranay 08 04 02 07 06 وقالوا ومرك لو يتعامل ومرك تانيسكا هدو ومرك بي كدعنا سنة هو ولا واجبين كده معك بدن معك نمبر ولا نسيب كتولة جامعة ومصيرة نقوليا جامعة مدام كمية هاي هالدور بالقوة كسرار كهان مجال عينها برنامج كان عنو كان قبل كاجي baldareen kaaga iyo sida aad u aragto wallahi horta aad baan ku faraxsanahay in dhalinyaradii gobolka Togdheer waliba ugu cadcadayday ee magaca iyo maamuuska ku lahayd maanta loo joogto waliba barnaamij dhalinyarada wax weyn soo kordhinaya maxay tahay ay halkan cayman lagu qabanayaan waliba ninka Khadar Xaaji Axmed laho baraha bulshada bariidayso hawlo badan ka wadiyay dacay waxaan leenahay balaar gobolka inuu gobol ee u qalmaynu yahay aad baan u salaamayaa aad baad u mahadsan tan boosti waa hal number 20 boost hadduu yeelan lahaa 20 dhibcood yeelan lahaa kadibna wuxuu qaadan lahaa lacagta jaamacaddan uga xumahay waxaan ku leeyahay nasiib wacan waxaan ku soo dhaweynayaa saabiriin iyo dhankeeda adeen ugu mahad celinayaa wariye jaamac boodacade sidaa jaamac boodacade uu buuxiyey shuruudihii barnaamijka waxaan rajaynayaa idinkuna inaad saas oo kale u buuxisaan afartan iyo kow kala barnaamijka dhanka ragga ayuu badan yahay soo dhaweynayaa wiilka soo dhawowlaan magacaaga waad noo sheegi kartaa cabdisamid ismaaciil waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka halkaas ay tegi doontaa waraaqaha idin soo qaadan doontaa cabdisamed waa wiil ka mid ah isaguna saxaafadda gobolka Saraar ama magaalada Caynaba hees ayaa u soo baxday waxaan rajaynayaa inuu shuruudaha buuxin doono kulay dhanka heesaas kuma wanaagsan baan malaynaya salmaysa figiyo beerka cada saligo dego saablayda feedhahaad ku samaysanto
salmaysadkiyo beerka cadasaligo dego saablayda feedhahaad ku samaysantee aad ayuu mahadsan yahay intii kale way soo dhaafay lambarada ayaad u gudbi doontaa aad ayuu mahadsan yahay si fiican ayaan kula jeedaa soo dadkii nasiibka lahaa xaggay galeen caawa dhankii hablaha xoog u soo bixi lahayn waa nasiibkooda hablaha u soo bixi lahaa inta halinaba kacdo inantina way guulaysatay inkastoo ay u tiro yar yihiin shaqaalaha gaarka ah inaynu hal bilaajaanaysa ku maamuusno si ay iyagana dhiirigelin ugu noqoto waxaan soo kicin doonaa mid ka mid ah isagoo ba ka jooga soo maaha soo kac xasanow xasanow magacaaga marka hore shacabku naga soo gaadhay magacaagu waa xasan kelmadaada iyo horta sidaad barnaamijka u aragto bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waan salaamaya musharaftan ka qayb gashay waan soo dhaweynayaa Soomaali show hablaha iyo nimada wada waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada gobolka Saraar iyo horeelka Shacaynaba waxaan leeyahay barnaamijka hore si wada waan ku aad baan ku mahadnaqaynaa aad baad mahadsantahay xasanow sidii horeba nasiibka saroon baa laga dhaafay laakiin shuruudaha waad mari doontaa xaggan u soo jeeso sheeka u soo baxday kolley waa oo odayaashii sheekadan u malaynaya bismillaahi raxmaan raxiim niyow anugu kale horta sheekooyinka ma aqaano laakiin beri baan siiyay halkaa intaan maray baan siiyay taariibo halkaa dhaxamagaan sii socday ilaa wajaala koonihiisa baal xun qotiyo xabashiya ee qabtay gabigiisu wuxuu ugu riday meel aan garan waayay marka dambe kolley waxaa iga soo badbaadiyey nin la dhaho isna magac kolley af Soomaali ku hadlayo Soomaali ah laga soo badbaadiyey yadaba ma noqon marka dib baa laga soo tarxibaa kana ku soo noqday waxaan leeyahay insha Allah idinku taariikhda bal iska ilaaliya diray kale wana tawanigida kulaha uu fahmayaa marka lagu soo kiciyana inaad isfurataa waa muhiim sheeko isaga ku dhacday isla markaana waxaanu ka baran karaa inuu nooga sheekeeyay aad u mahadsan yahay xasan oo lambarada halkaa ku qoran 1 ilaa 6 iyo 7 nambar oo ka mid qabsan doontaa haddii ay nasiibkaagu fiicnaadana waxaad nagala carraabi doontaa lacag haddii ilaahay ka dhigo نمبر كان سكولي وآخر يصدق حسن ونوسي شكلنا أن أنت نقول عكسه سيولها برنامج كنا خالد حاجي أنت كبدو كل على نيروش بدون أدلة كبيرة حسن هيست أنا يمكن سيجارك هاجع عد سنة أنا هيست ما قانع حاجة حديث لكن شكلي ما دمائنا يرى برنامج حلال دمان دليل هذا كتوتو حلال إنما ذي عاون نجى مرتينو يهين قبل كنا يماتين نمبر 2 كنا وان قلنا وحلال يهدي كون حلال يا دو سيجي ولا سوق قشانو
ودي قف كلا سوق عيا وكاي ما دو دل كوي ما دو إنه دل chance ده كوي فايدة أمسيره bulshadu inay adu midhmid dhibaato leh ku dhex jiraan inankii sida waxay nagu qodbaday inuu halka dambe gari siiro bay kugu dhacday markaas wixii dhacayo dhagaa kala socdo waan leeyahay aad u mahadsan yahay xasan nasiibkiisina uu tijaabiyey sheeko tusaale inoo noqotana inooga sheekeeyey waxaan ku soo dhaweynayaa saabiriin iyo qofkeeda mar saddexaad baa idin mahad celinaya bal aan wareejiyo waraaqaha isdhex geliyo gabdhihii way ugu dhici laadahay waxaan rajeynayaa markayna nasiib yeeshaan 23 number 23 hablaha way ku foorartaa caawa soo dhawo walaalo lambarkaaga bulshada tusiin ay u xaqiiqsan lambar 23 anoo arkay wad mahadsan tahay halkaas tagi doontaa waraaqda soo qaadanaysa bulshada ayaa la wadaagi doontaa wixii ku soo baxa ya bravo ba u bedel laakiin mar labaad soo baxo bravo ha ku soo baxay bulshada tusinaysa ku soo baxday هاي نايس qalbi daadka caashiqa dacallada ka soo galay ayaan waayay dabar iyo darbi lagu xejo adag wax badan barnaamijka noo daadaynaysa saawariin waana gobolkii labaad ee ay timaado waana reer burca aad buu mahadsan yahay ninka caadi bal ma sida walaal magacaagi bal noo sheeg kartaa Bashir Balada Bashir waa nin wanaagsan intii caawaad xishoonaysay intii isaga la wareey waa ka xumaay Bashir waxba kuuma dhicin laakiin waan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee meelo wadaagta barnaamijka sida Bashir oo kale kalsooni lahaada waxaan yaro iclaamin lahaayo kale hablaha kulay nala jooga hal inana way soo kacday numberka haddii la helo oo qofka haddii inaan hesho asxan hadduu inaan helana wuu soo kacayaa haddiise uu madhnaado waxaynu siin doonaa hablaha 124 مية هاي سوون لبا فور حسن با ورما حسن با سو نوقو نصيب كاغي qofna cid nasiibkiisa u diidi mayso markii hore aanu guulaysana waan rajeynaya inuu guulaysto markii hore sharaf iyo maamuus bay ahayd laakiin tani waa nasiibkiisii wuxuu inoo mari doonaa shuruudaha insha allah xasan warqad labaad baad soo qaadanaysa tii hore dee annaga kuma mid labaad baad soo qaadan doontaa sheeko بسم الله الرحمن الرحيم نمر هو سرقنا لكن هو شيء مكان قرنا كشيء أنا أبي بدل سن هاي بدل maxaad ugu bedelaysaan hees mise gabay
waa la isku dhex jiraa in hees la gacanta ha taagto dejiya inta gabayle waa hees soo baxday waxaanan dee ugu dhaafnay maadaama laba jeero sheeka isku xigta markaan debi jiray 15 markaan damackooda soo kacay dooqayga markaan u sahan tegey ka daydayo midaan u doorbido dabiicadaheeda gaadhiyo banaanku lahaa tilmaami labaatan 15 barka Chelsea ugu dambeeyay 25 buu ahaa muu noqon hal number baa ugu dhacday xasan oo wal su'aal baan ku sii weydiinayay ha iga tagin markii hore barnaamijkii adoo sheeko wanaagsan wada waa mid baalka hadda ka yiri siiruhu ay ku dhacday maxaa niyadaada ku soo dhacay ee ugu horeeyay waa caadi waan ma soo xaruumi inaan wax helo iyo wax waayaba waan u himi marka labadaba waan soo dhaweynaa waxaan baliyeen aad mahadsan tahay sacab ku sii sagootiye xasan sacab ku sii sagootiye sidii uu maxamed hore uga dhawaajiyay gabdhaha dhankooga way ka jiiftaan nasiibku uu soo bixi leeyahay lambarkaasi haddii uu madhnaado siduu maxamed hore u yidhi oo la waayo gabadh ayaa soo kici doonta haddii uu qofkii lahaa joogana wuu soo kici doonaa lambar 89 gabdhaha idinku lahaa niyo jabida dee lambaradiina bal hoos eega malaa waxaan yeedhinayna ka mid baa tiimbe lambar 89 soo kac waad la daahday soo dhow laakiin waad la habsaantay ma waxaas raadiidka raaci halka ayaad tegi doontaa walaalo waraaqaha ayaad soo qaadan doontaa waa hees isiyo wanaag baan kugu caawinaayo liibaan ku bari lahaa cashaquu kuu yahay lambarada ayaad u gudbi doontaa waad mahadsan tahay Rubeday. barnaamijku daba dheeraaday waxaan jecelahay mid ka mid ah haldoorka gobolka Saraar gaar ahaan magaalada Caynaba aad wada garanaysaan oo kana mid ah warbaahinta gobolka iyo Soomaaliland iyo Soomaaliyeedba
calitaani ayaan ku soo dhaweynayaa hal kelmad baan siinayaa kadibna waynu isku soo noqon doonaa ku soo dhawow calin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بالبشرة كل سجن هول كان إيش عينه سلام كذب وحنا كان chance كي يوقف يستليا برنامج كان حساب بدن إعدادية شاي كمديين محمديو خضريو إن أنت صابرين برنامج كان برنامج قار كم إذا قبله السماء لو صاحبته ومركي كواد xarunta gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba barnaamijka looma iman in nasiib ama lacag la qaato laakiin waxa loo yimi aqoon iswadaarta kaliya iyo inuu qofku mashaxa iman karo waxna bulshada uga sheegi karo barnaamijkan waa barnaamij xisaab badan gobolka Togdheer markii lagu qabanayay shacabkii dhex fadhiyay aan kamid ahaa dad aad u tiro badan ilaa dhowr boqol oo qof ayaa ka soo qayb galay aad u mahadsan yahay cali dhalinyarada wiil dhalinyara oo aad u firfircoon waa ninka gobolka nagu soo dhaweeyey dhalinyaro badan baa nagu soo dhaweysay laakiin wuxuu ka mid ahaa raggoodii ugu cadcadaa ee yidhi halkanba wax laga bilaabo sidanba loo bilaabo gobolka halkanba waxaan rajaynayaa isagoo kale inaad wada noqotaan haddii ilaahay ka dhigo barnaamijku inoo sii socon doonaa waxaan kelmad siin doonaa oo nala jooga marna nasiibkiisa tijaabiyey isuduwaha wasaaradda warfaafinta gobolka Saraar mudane jaamac Boota Cade ayaan isagana kelmadkiisa siin doonaa ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer nooga timi ee barnaamijka Soomaali Show wada kulli anigoo ka wakiila xukuumadda waxa afayno wasiirka warfaafinta gobolka anaga afayno markaana barashalka gobolka Batiriyo afkiisa ku hadlaya waxaan markaa u mahadnaqayaa dhalinyarada gobolka Togdheer nooga timi ee Soomaali Show barnaamijkan wada sidoo kale aad ugu mahadnaqayaa aan halkan looga mahadnaqin mulkiilaha ama ninka isagu dabada ka riixaya barnaamijkan oo ah ninka la yiraahdo Cabdi Cawil ninka Cabdi Cawil oo qorbajooga runtii ah qorbajoog ka soo jeeda gobolka Saraar oo isagu niyadiisa iimaankiisa ka keenay dhalinyarada Soomaaliland oo barnaamijkan u qabto hadii yihiin kuwa barco iyo hadii yihiin kuwa Caynaba runtii barnaamijkana waa markii koowaad Caynaba lagu qabto waxaan filayaa inaanu noqon doonin markii u dambeysay aad u mahadsan yahay afhayeenka gobolka Saraar kulli barnaamijku in badan buu soo socday waxaan u tixgelinayaa afhayeenka gobolka Saraar Master Boota Cade maadaama inamada ay ka badnaayeen 3 jeer hablaha haddana nasiibkoodu ka sii wanaagsanaaday oo ay soo kaceen ku dhawaad 7 dhalinyaro oo inama ah iyo hal inan waxaan rajaynayaa markan anigoon waraaq u eegin qofkii barnaamijka ugu dambeeyay oo inan ah haddii ay lacagta u qaado waxa halka ku fashilmaya dhammaan wiilashii soo kacay inta fadhida ma aha waa intii soo kacday inanta ugu miskiisan baan soo kicin doonaa haddii ilaahay ka dhigo inanta labaad safka labaad inanta labaad falyatafadal baan leeyahay nasiibkaagana tijaabi safka labaad inanta labaad falyatafadal الحمد لله رب العالمين مركود وحا مهد اسكاله إلهي سبحانه وتعالى اسكا قدرين عنك السؤول لما عمدنا اسكو عرقنا إن برنامج كالك لغو قبطو وحكا استوحي كل عين الله سبحانه وتعالى وديسا إلهي مهد كوهد اسكاله مقعي وهو آدم برود روضات بان كو سو دوينيا ورقada halka sanduuqa halka yaalad kala soo bixi doontaa warqad kamid ah لا waxaan ka sheekeynayaa suuradda loo yaqaan suurad Faatiha waa suurad qof kasta oo kamid ah ummadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa bartuu xigsiin iyo una garanayo waxay ku taagan tahay ama waxay ku fadhido suurad Faatiha waxay kamid tahay quraanka aayada qofka aan haduu akhriyo salaada markuu tukanayo qofka hadaan u akhriyin aan salaad laga aqbalaynin haduu ka tago inta markaan ka yimaado waxaan u gudbayaa sheeko la dhaho kitaab alle dantay ma oga sheekadaas waxaan ka maqlay oo aan ka soo xiganayaa sheekha caanka ah ee loo yaqaano sheekh Mustafa Xaaj Ismaaciil Haaruun isaga markaas
door horu magaalada yimi buu nooga warramay oo masjidka dhexe magaalada uu ku qabtay maxaadaro aad iyo aad u qiimo badnayd sheekadu waxay leedahay markaas nin reer miyi ah ayaa wuxuu soo qaaday inankiisa u guuriyey inankiisa markuu u guuriyey waad iska garanaysaa dadka reer miyiga ama reer magaalka reer miyiga reer baadiyuhu in laga qaado markaas odayga markuu inanka marka inanta loo doono odayga in xoolo badan laga qaado waxaa dhacday in odaygii xoolo badan laga qaaday oo gabadhii markaas ninkii loo doono uu guursaday ninkii odaygu uu dhalay markii lacagtii laga wada qaatayna inankii inanta guursaday baa dee dar la isaga dhintay markuu dhintay waxaa dhacday inuu odayga yidhi inantaana guursanaya bacdina waxaa lagu yidhi inanta ma guursanay sidoo kitaabkan ku ogolan diinta ayaan banayn inaad guursato gabadha uu qabo inanka aad adigu dhashay waayo waxay kula mid tahay dee inantaada oo kale markaa ma banaan inaad guursato kadib ninku wuxuu yidhi yaa yidhi ma banaana inaan guursado ama ii sheegaya oo waxaad diidi karaa kadib waxaa lagu waxaad diidi kara kitaabka ilaahi subxaana watacaala isagaa markaa aan ogolayn kadib ninkaadan wuxuu kusoo gooyey ama uu kusoo gaabiyey kitaab alle dantay ma oga yacnihii danta iga baxday iyo waxaan xoolo ka bixiyey iyo waxaan markaas adduun ku bixiyey kitaab alle dantay ma oga tahay nasiibkaagaad ugu gudbi doontaa kole barnaamijka waad la socotay 7 nambar oo ka mid aad qabsan doontaa wadaada loo sii macasalaameeyo guul daraystay mise waxba laysiineen waay waxaan aad u salaamayaa walaalahayga halkaan soo wada fadhiya dee warar caynimo kulle aad baan wada garanayaa dhammaantood iyaguna way garanayaan aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahay subxaana watacaala idin xifdiyo waxaan si gaar u salaamayaa saabiriin oo ah inanta barnaamijka daadiinaysa aad baan u jecelaha hablaha markay istaagi karaan ama mashraca soo istaagi karaan wax ka sheegi karaan ama ay markaas wax gudbin karaan dad badan baa raggi badan baa wada qatilaya ma garanayo waxay la qatilayaan laakiin hablihii weli way soo harsan yihiin waxaan rajaynayaa nasiibkan ugu dambeyn iyo gabagabadii barnaamijkeen kolay joognaa waqti badan baynu soo wada caweynay barnaamijku ma noqon doono barnaamijkii ugu dambeeyey gobolka lagu qabto haddii allaha awoodda la ogolaado ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada sharafta maamuuska qadarinta iyo xishmadaba naga mudan ee reer caynaba ee soo ajiibay codsiga ayaanu ka codsannay barnaamij aanu gobolkooda ku qabanayno inay nagala soo qayb galaan marka labaad waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka saraar axmed maxamed xaashi gudoomiye ku-xigeenka gobolka nuur qaasin mulkiilaha hoteelka jaamac karaaciin marwada mulkiilaha hoteelka sucaad cabdiraxmaan cali shaqaale hoosaadka hoteelka isha caynaba dhammaan ummadaasi ama dadkaan soo xaadiriyey waa dadka aanay la-aantood noo suurto gasheen inaanu halkan cag soo dhigno barnaamijkan quruxda badanina uu nagu qabsoomo gaar ahaan waxaan kasii xusayaa marwada mulkiilaha hoteelka sucaad cabdiraxmaan cali oon leeyahay aad baanu kaaga mahad celinaynaa qaabkaad gobolka nagu soo dhaweysay iyo sida quruxda badan ee aada nagula shaqaysay inuu barnaamijkani qabsoomo intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada gobolka togdheer gobolka saraar baan mar labaad u mahad celinayaa intii nala shaqaysay iyo intii soo ajiibtay codsigaygii marka ugu dambaysa wixii aan ka tegay saabiriin baa xusi doontaa waxaan u mahad celinayaa inamada kamarada quruxda badan inugu howlan samiir saalax nuux maxamed cabdi injineerka barnaamijka khadar xaaji saabiriin oo barnaamijkay la daadihinaysay intii aan ka tegay waxaa xusi doontay hadduu ilaahay ka dhigo saabiriin sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aad ayuu mahadsan yahay maxamed soomaali marka koowaad isaga ayaanu mahad celinayaa oo aanu la-aantii barnaamijka dhaqaaqeen koley dad badanba ka muudsagin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada quruxda badan ee gobolka saraar koley waa markii iigu horreysay ee aan nolosheeda caynabo imaado waxaanan ka helay dhiirigelino fara badan koley wiilashii qaar way i heeseen gabdhihii way dhiirigeliyeen waan ka qabaa waan u mahad celinayaa dhammaantood waxaan rajaynayaa markan iyo marar kaleba inay isku soo noqono tiimkaygii la socday aad ayaan ugu mahad celinayaa oo igu horeyso filsan axmed iyo weliba naciimo
sidoo kale waxaan mahad celinayaa ciidanka booliiska iyo weliba military halka iga muuqda oo dhanka ammaanka inoo qaabilsanaa mulkiilayaasha hoteelka intii gacan ka geystay barnaamijka Maxamed Soomaali Xusay barnaamijku wuu mahad celinayaa insha Allah gobolka Saraar waan isku soo noqon doonaa sidaas iyo nabadgelyo isma dhaafno